sheekada haweeneyda muddo 25 sano ah qoodisa dawacooyinka magaalada. intaan ugu gudagalin sheekada hadii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqato fadlan nagu soo biira muuqaalkana la garay maasanid. haweeney u dhalatay dalka UK ayaa muddo kooban gudaheeda waxa ay ku noqotay caan iyo la raasade kadib markii la ogaaday in 3 fac ama 3 jiil oo dawacooyin ah ay qoodanaysay muddo 25 sanadood ah. haweeneydan qoodisa dawacooyinka ayaa ka soo muuqatay aaladaha social media sida TikTok iyo Instagram-ka. waxaana haweeneydan ay dawacooyinka ugu yimaadaan gurigeeda. waxa aaladaheeda Instagram iyo TikTok ku xirmay gabadhan boqolaal dadweyne ah oo si maalinle ah ula socda sheekooyinka ay soo dhigto ee la xiriira dawacooyinka ay qoodiso. gabadhan ayaa soo bandhigtay muuqaal iyada oo hilib u tuuraysa dawacada, muuqaalkaasi oo hadalhayn badan ay ka dhalatay. waxa tan iyo markaasi ay soo bandhigtay muuqaalkaasi baraheeda bulshada ku xirmay tiro ka badan tiradii hore ula socotay. haweeneydan ayaa 3 fac ama 3 jiil oo dawacooyin ah qoodisa si maalinle ah, waxayna qoodinaysaa muddo ka badan 25 sano. qisada sheekada gabadhan ayaa sida dabkii ugu sii dhaxfaafaysa baraha ay ku xiriiraan bulshada ee internetka. dawacooyinka laftirkooda waxa ay si maalinle ah ama si joogto ah ay u soo booqdaan guriga haweeneyda si ay u helaan garaamkooda maalinlaha ah. haddaba daawadi hadii aan su'aal ku weydiiyo, dawacooyinka ku nool Soomaaliya soo tiima ahayn ariga ama waxraa cuni jirtay ee la burbursan jiray? tan UK ku nool ama tan adduunka ku nool maxay ugu duwan tahay tan Soomaaliya? oo aan ka ahayn sheekada aan hadda idin la wadaagay. bal commentiga noogu reeb fikirkaaga waxa ay kula tahay.